horta marka koobaad ilaahay waa mahad iska leh mar labaad waxaan u mahad celinayaa ummadda Soomaaliyeed sida walaaltinimada iyo Soomaalinimada la xariga uga dagaalamay abaalkooda ma gudi karo hore loo yiri dadka geesi lagu yahay Soomaaliland wax uma noqon kareen qof maanta aan mahad celin wax ka badan u sameyn karaan ma jirto laakiin abaalka iyo kale waa mid aan xasuusnaan doono in hadsiin marka koobaad saddex iyo labaatankii bishii koobaad aan iraahdo ayaa la soo xiray maanta xorriyadii dib u helay 12 duhurnimo ama 12 PM sida loo yaqaano kulli xabsigu duruuf badnaa waalidkayga iyo familygayga iyo Soomaali intii حركة كحمة سيلا كشقيننا حرية دي بوهلو ما أنت الحرية دي بوهلي وحنا نحنا سد احتلودي لم يسوون هذين. وياي نعيم واحد يشك صعب أنت حفصي قاعد كجرتي طاقة نلاش هذا واحد. والله حبسي وعيش ويتبدنيهين. أنت قف بين هذين اللي احترامنا طبعا تبكي حبسي قبلي. ستي عم بيلا نقمن يبقى قدام ما كتبنا أي هرجيسة لكن حبسي قبلي وحنا قديكيو هرجيسة كدول ما من كودي المسؤولين صادوا ثقة بنادم الله رقم مسؤول وقرص البدن أنت أود كرينة احترامنا وكله إذا يو هرجيسة وسردون كا يصدق الدحية كتير يدي باتوين بدن. وياي كيس كان لجوه حري مركز دمنا لجوه حكومي أديه سداد واركيس. guud ahaan baan xarigay go'aamada si sharciga waafaqsan loo marin way maxkamaddu waxa u dhaxaysaa dawladda iyo shacabka mar walba maxkamaddu waa inay dhexdhexaad ahaataa qodobka aniga lagu qaaday qodob aniga qabanayay sheer aniga sharci ay toona looma soo marin wuxuu bilaashay xukuna aan isku xukuno bareera وقرت مركي حكم كاسو kugu dhacay oo maxkamadda lagu horgeeyay xabsigina dib lagu celiyay horeyna waqti hore aad u xinayd bal dareenkaagu sidoo noqday طبعا والله أنا مرة ما نيرحماني waayo waxaan ogaa adduunkan daayarahay xariguna qof kasto oo daayar nolosha ayuu arday yahay xarig wuxuu kamid ahaa xiisadaha aan waayarnimadeeda nololeed ku qaadanayo kuwa ugu saameynta badan leh wax dib u mararkin hadii aan dhamaysan lahaana waxaan aaminsanaa oo saddex sano inay Britain adduunka u daayar nolosha baahanka ka socon doonto waxbana aanay iga xumaanayn waayo waayarnimada xabsiga laga helo dunida meel kale laga helaa ma jirto وقرتي waxyaabaha lagu weystay waxa kamid ah inaad xamar timid marka maxay saameeyna oo safaradaadii iyo daniya xamar aad ka lahayd laga yaabo inaad u soo aadi lahayd ay ku yeelanaysaa xariga lagu geystay niyo horta marka xaqiiqada dhabtaan ka hadlo anigu abwaan Soomaaliyeed baan ahay dunida guudkeeda ummadda Soomaaliyeed ku nool aan afkooda ku maansoodo ayaan dhexdhexaad u ahay ma jirto cid gaar oo noloshayda ku dhaaran karto leh dadkaas aan dhaxwoon matala siyaasadda geega Soomaalida ka jirtaana ma aha mid aniga naqiima ahaan noloshayda iyo horumarkayga khaaska ah saameyn ku yeelan doonta sinaba iyo goornaba ma aha mid xanidi doonta dunida meeshaan marayo meeshaan u socdo waa go'aamo aniga iga soo fulay cid xarigeeda iyo cid gaar rabitaankeedu ma noqon doonaan xuduud aniga isoo xadiisaan iyo hortaagta waxaad iiga warantaa bal qaabkii lagu soo daayay iyo cid ka shaqeysay lagu soo daayay inta ugu badan horta ummadda Soomaaliyeed mid dal joogi mid dibad jooga intii jecelayd naiminay noolaata dunida guudkeeda si walbooy ugu guntadeen labadayda waalid dadkii dhibaatada ugu badan ku dhacday bay ahaayeen habeen iyo maalin aan seexan طبعا أبغي وجيسي حتى أنا شوق لهاي الكومان صوت حلا لهاي حتى علمي هو ديريو فهمني جيبه هو سيا وقبلنا جودها كشقيناي إن حرقيا لصوفه بداية من حرية جديد هذا waayahay marka ugu dambeyn bal maxaad u sheegaysaa dadka Soomaaliyeed ee ku dhageysanay طبعا dadka Soomaaliyeed ee dhageysanay waxaan u sheegi doonaa طبعا أنا كصومالي نبغى قنعسة صومالي نبغى وحكوه سيا والنعيمة قنعين كراد من الجود كذا ما يعلن سكلا حتى أنا تيجو نعيم وقف ضدك وبحيسة قولك الصوي الصومالي لكن هاي نالي قتل ذهبي أيضا بسن لأن هرب وصشيء حديث اليد اللي قادوا اللي يشرو
طبعا qofku wuu dhiban karaa waa la xiri karaa laakiin fikirkiisa rabitaankiisa waa mid dunida ku noolaada haddii aan xidhnaana fikirkayga dunida ku noolaa haddii aan xurriyadayda helayna qofka dhaqan gelinaya waa aniga aanun Somaliland dib ku haynin ka Somaliland oo ku dhashay noloshii intii ugu badneed baan ku soo qaatay aan shacabka reer Somaliland waa dadkii aan nolosha inta ugu badan soo wada qaadan sharaf iyo karaamo iga mudan yihiin maamulku oo mid maantii berina tagi doona oo ma noqon doona mid aniga النحسية كان أصلها نرشيد إنتي ذو برنامج قصاقاتي مروتنا شخص شرفي كرامي يقولون مرحبا كذي ساريين حدي كرام بس يقوم عارف يقصور كذا أنا ونعيم هانو حن عام سنة ما عارف كلفتي سوادي في كليال أن لون هذا علينا ما أنا نقول دونا كواني وحيالا نحن نقصون هاي حدي أنا سياسي بتكلفوا بيننا قلبي رؤمة الصومالي وقوي السيال